bal qiyaas haddii aad gaariga aad fuusho meesha aad u socoto ku geeyo haddana qof aan wadin ma u malaysaa inay tahay waa tiknoolajiyada dhabta ah maanta ay ka shaqaynayso dalal badan laakiin su'aalaha ugu weyn sidee ayuu gaarigaas isku wadaa maxaa ka dhigaya inuu waddada arko istaago nalalka cas una shaqeeyo shirarka ama inuu iska ilaaliyo shirarka ayna si fudud u fahanno soo dhawaada muuqaalkan waxaan uga hadalnaa self driving haddii aad janaalka aad ku subtahay kanaalka subscribe noo saar aad iyo aad u mahadsantahay intii hore nala joogtay muuqaalkan noo share gareeya gaarigaas wada waxa uu ku shaqeeyaa kombiyuutar awood badan oo ilbiriqsi falanqeeya malaayiin xogood ayuu ilbiriqsi shaqeeyaa inta uu socdo gaariga oo si joogta u eegaya wax kasta oo ku hareeraysan oo dhacaya aqoonsanaya waddada gawaarida kale ku soconaya haddii ay ku soo socdaan iyo dadadka ay ku socdaan iyo booska ay ku socdaan iyo baaskiiladaha calaamadaha taraafikada iyo xawaaraha gaadiidka kale uu ku socdo ayuu si fiican u ogaadaa marka xogtaasi la ururiyo wuxuu kombiyuutarka gaariga uu go'aansadaa inuu wax walba uu ku dhaqaaqo uu gawaari xawaarahiisa uu isku daro leexdo xawaare kordhiyo ama uu yareeyo maxaa ku shaqeeya gaarigan self driving-ka uu asaga iswadayo wuxuu ku shaqeeyaa 4 ama 5 waxyaabood ayuu ku shaqeeyaa 1 wuxuu ku shaqeeyaa AI-ga haddana 2 wuxuu ku shaqeeyaa kaamiradaha 3 wuxuu ku shaqeeyaa radar ayuu ku shaqeeyaa 4 wuxuu ku shaqeeyaa lidarka ayuu ku shaqeeyaa 5 waxa waaye GPS-ka ayuu ku shaqeeyaa 5 ayuu ku shaqeeyaa gaarigaas markuu AI adeegsanayo waxa waaye go'aamada ayuu ku qaataa AI-ga markuu adeegsanayo kaamiradahana markuu adeegsanayo wuxuu akhriyaa waddooyinka calaamadaha iftiinka dadka uu soconayo meesha uu joogo meesha dadka uu ka soconayo ayuu ka eegayaa lidarkana markuu adeegsanayo masaafada u dhaxaysa gawaarida kale iyo walxaha kala duwan sida dadka baaskiilada gawaarida kale marka uu soo socdaan ayuu ku eegayaa lidarkana wuxuu markuu adeegsanayo waxa waaye sawir 3D ayuu ku sameeyaa kadibna ayuu u dirayaa oo fahmaya markaas markuu adeegsanayo GPS-ka markuu adeegsanayo waxa waaye khariidada meesha aad u socotid ayuu ku tilmaamo goobta saxda ah waaye GPS-kana marka waxa uu kale sheegayaan dadka inuu dareemeel kala duwan oo la socdo markaas oo xogta uu bixinayo markaas waaye dhammaan qalabkan ayaa wada shaqaynaya si gaarigaas u socdo si ammaan ah marka intaan qalabadaan soo sheegnay waxay socdaan gaariga si ammaan ah ayuu ku socdaa markaas gaariga si ammaan ah ayuu ku socdaa inta badan hadda wadamada ay laga isticmaalo waxa waaye Mareykanka Shiinaha Jarmalka iyo boqortooyada midowga UK ayuu ku shaqeeyaa inta badan hadda waxa waaye shirkadaha ugu badan ee hadda ay soo sameeyaan ama shirkadaha ugu horumarsan self driving-ka waxaa ka mid ah Tesla oo ku yaalo Mareykanka ama Google ay leedahay oo ku yaalo Mareykanka ayadana waxa waaye Mercedes oo ay Jarmalka ay ku yaalo iyo Shiinaha oo BYD Shiinaha iyo Apollo oo Shiinaha ayadana ama SEAT ama Amazon oo ah Mareykanka ayadana ayaa lagu isticmaalaa shirkadahan ayaa malaayiin doolar